السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرحت باني دي رجينا يا عافيمات تاما والله شرفت بدن ميل كستو أدوكات كتشوكتان مقالدين وجودا بيين وحنكو سو قادنayna faktarada ugu waaweyn ee keeni kara ragga dareenkiisu inuu hoos u dhaco oo aynu ka eegaynay physiologically iyo psychologically iyo marka la eegayaba dhinaca environmentally intaba aynu ka soo hadalnay laakiin maanta waxaynu inshallah eegaynaa shan shaah oo u wanaagsan dareenka ragga dareenka aynu bulsho ahaan u naqaano kacsiga ee ragga shan shaah oo fiican baynu kaga hadli doonaa muuqaalkan. shaaha kooban waa shaaha laga samaysto geedka jinsinka la yiraahdo gaar ahaan nooca laga helo wadanka Kuuriya ee midabkiisuna uu casaanka yahay. waxa uu hagaajiyaa qulqulka dhiigga oo uu sar u qaadaa inuu dhiiggu si fiican ugu soo tifiqleeyo ama ugu soo gaadho blood streamka iyo circulationka dhiigga ayuu u wanaagsan yahay. waxa kale uu fiicnaysiyaa ninku inuu dareen buuxa oo dhammaystiran u helo. shaahaasi waa shaahyada commonkan ee dareenka ragga wanaajiya ama fiicnaysiya ee meel fiican geeya. shaaha labaad waxa lagu magacaabaa hibiscus tea. shaahani waxa uu hoos u dhigaa cadaadiska dhiigga waxaan u wanaajiyaa qulqulka dhiigga sidoo kale waxa uu fiicnaysiyaa wareegga dhiiggu uu ku wareegayo jidhkeena uu circulationka ku samaynayo. shaahanina waa mid u wanaagsan dareenka ragga marka laga hadlayo meesha xoogga la saaraya waa dhinaca dhiigga. haddii dhinaca dhiigga isku gudubkiisa iyo socodkiisa dhibaato ay ka jirto waa markastoo ninku si fudud u develop garaynayo erectile dysfunction inuu ku dhaco xanuunka leeyahay dhiigga ama kacsiyarida. shaaha saddexaad waa shaaha laga samaysto dhagayaraha. shaahan laga samaysto dhagayaruhu isaguna waxa uu fiican yahay qulqulka dhiigga waxa kale oo uu yahay xoojiya dareenka ragga isla markaana sar u qaada. waxa kale oo ku jira maado la yiraahdo ethanol oo isaguna caawiya qulqulka dhiigga. shaahani markaas waxa uu fiican yahay dareenka aynu shaahan u naqaano dareenka kacsiga ee ragga ayuu aad iyo aad ugu fiican yahay. faa'iidada noocaas ayaanu leeyahay oo uu siiyaa jidhka ragga. shaaha afraan shaahanina waa shaaha sinjibiisha. shaaha sinjibiishu waxa uu sar u qaadaa soo saarista hormoonka la yiraahdo testosterone in la soo saaro. waxa uu cariyaa hormoonka la yiraahdo luteinizing hormone ee ka qayb qaata inuu xiniyaha ku cariyo inay si fiican ay u soo saaraan hormoonka la yiraahdo testosterone-ka. shaahan sinjibiishuna faa'iidada noocaas ayuu leeyahay oo isaguna waa mid u wanaagsan awoodda raganimada iyo ninku inuu dareen fiican helo gaar ahaan hormoonka testosterone-ka xaddi fiican oo ku filan in la soo saaro oo jidhka ragga markaas uu helo. shaaha ugu dambeeya shaahana waa shaaha cagaaran ama la yiraahdo green tea-ga. shaahani waxa uu isaguna sameeyaa relax blood vessels tuubooyinka uu dhiiggu raaco ee la yiraahdo blood vessels-ka ayuu dabciyaa oo relax ku sameeyaa oo uu dabac ku sameeyaa. markasta oo tuubooyinkaas ay cidhiidhi noqdaan ama ay tight noqdaan ama ay noqdaan kuwa markaa naaroo widahoo dhuudhuuban waa markastoo ninka dareenkiisu hoos u dhaco. kuwan haddaba waxa uu ku sameeyaa inuu dabciyo shaaha leeyahay green tea-ga kadibna dhiig badan ayaa soo gaadha xubinka taranka ninka iyo goobta cawrada la yiraahdo intaba. shantaa shaah ayaa waxay yihiin shan shaah oo ragga marka la joogo dareenkooda fiicnaysiiya. intaas ayaan ku soo ururinayaa
فرحاد يا عافيمات تاما يعني ذي رجينا يا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.